qisadan waa dhab waana qiso jacayl ah misna aad iyo aad u xanuun badan. waa maalnimo axad ah salaadii casir kadib goor galab ah oo jawigu aad iyo aad u degan yahay ayaa waxaa kulmay laba qofood waxayna ay mideeyeen qalbiyadooda. waxay bilaabeen xidhiidh aanu midkood hore u samaynin. waxa ay beereen ubax aad u qurux badan oo cas dhexdiisuna ay udgoonkii jacaylka uu ku raayo. waxa ay bilaabeen kalsooni uu midkood kan kale ku qabo. jacaylkuna haddii kalsooni uu leeyahay waxa uu haystaa tiir uu ku istaago. ayaamuhu waa ay sii socdaan, intaan jacaylka iyo leydh caashaq waa ay sii wataan lamaanahan isbartay. waqtigu waxa uu ordaba maanta 3 sano ayay u jirsaday jacaylkooda. mid waliba oo kan kale dhigiis iyo lamaanihiisa ayuu u haystaa, oo waxa uu aaminsan yahay in labadooduba ay yihiin kii alla uu u qoray oo ay nolol iyo qoys wadaagi lahaayeen. aad ayay isugu faraxsan yihiin, aad ayay isu fahmeen, aad ayay isu jecel yihiin oo weliba isugu qanacsan yihiin. markii hore meel ayay wada joogeen oo jacaylka ay ka wada bilaabeen. haddase safar ayaa la kala galay oo labada wadan ayay kala joogaan lamaanahan sida wanaagsan isu jeclaaday, oo waa lagu kala nool yahay labadaasi dal. si kastoo ay adduunyada iyo mashquulkeedu u badan yahay, haddana iyagu isma aysan hilmaamin oo waa laba qofood oo isu maqan. waxay sida ahaataba tani waa adduunyo oo isma dhaanto, qof walibana sida uu ku tashanaya maahee si kale ayay xaaladdu noqotaa. war aanay ku farxin ayaa xalay u soo yeeray inantii loo sheegay waa mid ka mid ah asxaabtoodii kana warqabay sida iyada iyo wiilku uu jacaylkoodu uu yahay, maadaama inta badan dadku ay yihiin markhaatiyaal aan lagu dirsan. waxa uu sheegay war aad u murugo badan oo qalbiga lamaanaha gilgilay, oo inantu waxa ay muujisay xanuun qalbigeeda mar qura ayuuna ku yiri, walaal miyaad og tahay in uu guursaday hebelkii aad isjecleedeen? bal ka waran dhegayste daawade, qof aad isjecleedeen muddo 3 sano ah iyo ka badan haddii lagu yiraahdo waa uu guursaday. inkastoo hadallada iyo dhawaaqa afkiisa ka yimid isagu ay la fududaayeen, haddana iyadu dhimbilo dab ah ayaa qalbigeega ka dhacay. waxaana inantu ay dareemaysay xanuun aad u weyn. waa habeen ay aad iyo aad ugu xanuun badneed, warwar iyo weliba murugo, oohin iyo ciil ayaa inantii la soo dirsay. iyadoo oo aad iyo aad u nijabsan ayay garaacday lambarkiisa, kadibna way u hambalyeysay oo ay u duceysay. aad ayay ugu murugootay, waxa ay wehel la noqotay oohin iyo calaacal. waxa ay dib u raaci jirtay xusuuso iyo weliba xigashooyin aad u wanaagsan. waxayna leedahay inantu, sida caawaan ahay waa heestii qadarkeeyobe. gabadhan waxay aragtay inay halis ugu jirto, kadibna go'aan ayay qaadatay. markii horeba qof han iyo himilo u dhalatay ayay ahayd. hankeedii ayay kor u qaaday, waxa ayna muujisay kartideedii. waxa ayna bilowday in waxa qoorta ugu jiro ama ay iyadu jacaylka ay samayto ay noqotay wax ay ka kaba karto. ciil kasta iyo weliba si kastoo ay caawa ay ahaataba, inantii ugu dambayntii waxa ay go'aansatay in ay isaga harto. waxaana jacaylka inta badan uu noqdaa lamaanuhu haddii uusan guulaysan in la doonayo in qofka isaga uu go'aan ka qaato qofkii uu jeclaa, maadaama qofkaas arrimo ku cusub noloshiisa laga dareemay. joogaaga dheer iyo xibnahaaga jalaqsan, jaleecada kalgacaylka, jaahaaga quruxda leh, timahaaga jiifee, miskahaaga joogiyo dhexda taaga lagu jaray, jirkaaga xiriirta ah, jaadsamida codkaaga iyo qosolkaaga jilicsan. haddii lagaa sii tagay waayihii aad wada qaadateen, adiguna waa in aad go'aan qaadataa oo noloshaada aad dib u milicsataa. ayaha nolosha TV saaxiibada ku xiran
ayaa daawanaysa aad baad u mahadsantihiin wixii fariimaha iyo weliba ah dhinaciina iyo commentiga